beel kamid ah beelaha deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta samadoon usub ku caleema saaray magaalada Baydhabo ee xarun goboleedka Baay xaflad si xeer sare loo soo agaasimay oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta qaybahooda kala gedisan ayaa waxa ay ka dhacday hotel Bakiin ee duleedka magaalada Baydhabo mas'uuliyiin kala duwan oo goobtaasi ka hadashay ayaa dhamaantoodii qiray in loo baahan yahay in samadoon imika dibadda loo taago taasi oo ay noqon doonto wax ka bedelka dhanka siyaasadda deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya iyo beelaha deegaanada koonfur galbeed sidii ay u gaari lahaayeen higsigooda waa kuwan qaar kamid ah samadoonadii goobta ka hadlay waliba malaaga ka dhawaayaan maamulka bulshooyinka Soomaaliyeed gaar ahaan guud ahaan dadka malaaga dooradahay qolsi sheegay hore ballangaday waliba taageeraan ahaa malaag hadal dooradii hadii ilaahay raalkanada waana la shaqeeyaan beelo kala oo walaajogan oo wiilkan oo adeerkoono anna beelaha la raw reer waraas la gaar ahaan mas'uulku iyo qobsadeen wala ducaadiyo lana ankaartiyo lana waayo waalidkii wala hariyo ay soo biyaan eeda taageeraan waana eeda maasinin ونحن نسير لقادني ونوقع هذا الآن ما قاعد يجيني مرفلة وانا أقولاني وانا قادني واها هرينا قبصتي بيل هرينا قبصتي بيل وراسينا قبصتي وانا مسلمين تا قبصني مالكين قبرنا بيلو مالكين قبرنا لما بيلو مالكين قبرنا ومتنا محمد ولي هذا الله كنت يلا كين قبض إني ميلي الهود ملاك لأني الهود هذا الهود. باسكي ريتري معلوم حسين مامي أو إذا يذكر لهم ملاك ولا سرهاي باسكي جاي يبنى ناي باسكي سجاه كبويني شرفت النظام كويسين كي كنتاني كرجع قالنا بقول كي بقول ما سنتين ملاكس أو لا مسارو هاي كي قال إسيا كدير إمرفلا إنني لأقالم يسين كورني ملاك إذا كان تاجر سنة مال رايوس إذا نحن روايانا ملواي ملاك حسين كبعد بشرر وراسله مال رايوس وال أو مال رايوس ملاك هرموالنا حدنا عبد الناصر محمد هذا ملاك بشر وراسله إذا كان روايانا وفرحنا xildhibaan Mudiyo Maxamed Aftiin oo ka tirsan mudanayaasha dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dhankiisa hadallo kooban halkaasi ka soo jeediyay kuwa uu ku baraarujinayay guud ahaan beelaha deegaanada koonfur galbeed ay u dhabar adeegaan sidii samadoono iyo ugaasyo dhaqan looga hirgelin lahaa dadyoga ku nool deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya malaagu cusbo nana tusi mayl iraan dadkeen ma ka mahdaa in soo deegaanka fuujiga ka saaraan ما يكون مدة تتكلم عن تبع إلهي وين أنت جايش الدنيا يا معناه أنا يا شرفتيس يا مدام شيء يا عدالتيس يا والترنمديس يا شيء هذا كم بدي أنا لما كلمة ذو يا كو هذا لا ما كهر هرت الدنيا ما يلقى حكومة حل إيه حل كقلنا هرتك حق والحكومة له قوال ولكن الإنشاء أوها متعلم جامعة لهم فكريهم ونون لقادني إلهي يدين شيء وانا لشقيان أنا كهراء أفكار لبارد كوفر قلبات tan iyo waqtigii doorashada ka dhici doonto Soomaaliya dabayaaqada sanadkan la ilaamiyay waxa soo baxayay beelo kala duwan oo ayagu nabadoono qabsanaya kuwa oo la doonayo inay ka qayb galaan doorashada gabagabada sanadkan ka dhici doonto Soomaaliya Maxamed Aadan Socdaal Jubaland TV magaalada Baydhabo